Assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabay sida magaca kanaalkeena ka muuqata waa iftiinka xogaha xog kasta oo isleenahay bulshada ay faa'iido u leedahay waxaan isku day doonaa inaan soo gudbino fikradan ganacsi maanta ka faa'iideyso maxaad u baahan tahay qalabka iyo warbixintaba halka hoose kaga bogo bismillaah wixii ka dhimanna ku darso kow hal board oo VIP ayaad u baahan tahay qiimaha lagu sameeyo $100 qol kira ayaad u baahan tahay qiimahaana $100 goob koona haddii ku yaalo suuq fiican iska haystana qiimuhu waa $70 haddii agaarka suuqa uu ku yaalo qolku waa $200 qiimaheenu qaadanna waa $200 imika sidoo kale waxaad u baahan tahay kuraasta caaga yaryar ee gaagaaban konton xabo ayaad u baahan tahay konton xabo min $4 waa $200 miisas yar oo faarada ku sameynaysa u baahan tahay qiimaha ugu talagalaysa waa $100 saddex kildhi oo kuwa leer ku shaqeeyaad u baahan tahay saddexda kildhi oo min $10 waa $30 xabad talaagada dhaxayaad u baahan tahay $120 talaagada waxaad ku ridaysaa kalluunka iyo khudradda xagga dambe aan ku sharxnaa sida ugu baahan doonto waxaad u baahan tahay samgaas laba xabo ayaad u baahan tahay oo aad ku bilaabaysaa ganacsigaaga sidoo kale waxaad u baahan tahay shoolada samgaasta nooca fiican qiimahan waa $70 miiska hadduu saaraysa kildhiyada shaaha alaabtan aad kusoo diyaarinaysa faaradda qiimaha waxa kugu samaysaa $50 laba kursi oo saa'id oo u baahan tahay dhinacaad ku shaqaynaysaa $24 labada kursi qiimahoodu weeyaan kursiga maqalaya iyo miiskiisu waa $50 isagu waa gaar xabad saacada leerkaabaad u baahan tahay qiimahan waa $30 waa nooca fiican saddex inuna shaqaale ayaa ku shaqaynaya yoomkaas iso min $6 $6 lagu dhiftay saddexna waa $18 $2 ugu darka maqalaya waa $20 lisanka ganacsiga cashuurta dowladda hoose waxa kaaga baxay $60 markaa hore aad bilaabayso sanadkiina mar baad goosanaysaa hadduu ilaahay nafta ku daayo intaas waa inta alaabtaas aan soo sheegno oo dhan waa qiimihii aad u baahnayd ee meherada ku furaysay iyo alaabaad u baahnayd haddaba maxaad iibinaysaa waa khadkaan hore loo sameey intaan ogahay waa hodheel iibiyo cuntada fudud haddaba saddexda waqtiyo nus saaca 9 subaxnimo maxaad iibinaysaa sideed wax u bilaabaysaa kow subaxdii waxaad iibinaysaa quraac fudud sida roodhida iyo muqumada laba qadada waxaad iibinaysaa bariis basmati qaas iyo kalluun saddex cashada waxaad samaynaysaa caanageed iyo timir subag leh nus saaca sharaab iyo sandwich ayaad samaynaysaa koobka sharaab 4 kumaad siinaysaa sandwichna 2 kumaad siinaysaa iibka dhacay qiyaasaan maalinta hadaynu qiyaasno quraacda waxaad ka soo qaadaa xadiibsi 30 nafar oo roodhiya 30 nafar min 7,210 shilinka Soomaaliland oo u dhiganta $24 quraacda waxaad iibsay laga yaabaa muqumad 30 nafar ayaad iibsay 30 nafar min 15,000 si lagu barto si adigu min 15,000 shilin si 30 nafar min 15,000 waa $410 shilinka Soomaaliland oo u dhiganta $22 qadada konton nafar ayaad iibsay maca kalluunkooda konton nafar min 12,000 shilin si lagu barto adigu 12 si qiimuhuna waa $600 shilinka Soomaaliland oo u dhiganta $69 cashada konton qof oo ka cunay ka soo qaad caanageed iyo timir lagu riday dibadda geeska fiiro gaar ah koobka caanaha xasiisa 8,000 timirta haysana 5,000 konton qof oo min 13 waa $600 shilinka Soomaaliland oo u dhiganta $75 nus saaca waa 40 qof ka soo qaadinay iibsay 40 qof oo min 6,240 shilinka Soomaaliland oo u dhiganta $26 qiimaha ku furanaysa dabadeen isku soo geeno waa $100 200 130 120 160 70 50 60 waxay isku noqonaysaa $990 oo alaabtan soo sheegnay qiimahoodii marka la soo geeyo dhamaanto $990 ay noqotay oo u dhiganta $1,000 weelkiyaaga kuwa wax iska jaban $6 iyana qiimahan kama badanayso totalka iibku maantaas dhacay hadii isu geeno waa $420 250 960 oo u dhiganta $220 total iibku maantaas dhacay kaliya xisaabinay ka goo $20 oo shaqaalaha $220 laga gooyay $20 $280 oo xaasil ah ayaa ku haray $180 alaabta dib ugu soo celi si ay meherada dib ugu soo shaqeyso $100 meel dhigo $100 lagu dhiftay 30 cisho waa $3,000 bishii xogtan waa xog sax ah bulshada ayaan ka soo ururnay Soomaalidu aad ay ugu baahan tahay ka faa'iideysta walaalayaal ganacsigan waa ganacsi cusub ka faa'iideysta asxaabta cidda haysata $1,000 ku maalgasho $3,000 bishii ka faa'iido tijaabin karaysaa 2-3 qof wada tijaabiya dhamaad fadlan video-gan dadka like saar dad nagu cusubtana subscribe saar oo nagu soo biiro. Assalaamu calaykum.